Sirtii 12 boqorad. Beri hore waxaa jiri jiray sultaan. Sultaankaasna wuxuu lahaa 12 gabdhood. Gabdhihiisana aad ayuu u jeclaa. Mar walbana wuu ka walwali jiray. Markii la gaaro habeenkii, qolkooda ayuu ku soo xiri jiray. Balse sultaanka subax kasta markuu waaga baryo oo qolkooda soo galo, wuxuu arki jiray kabahooda oo ka go'an. Wuxuuna la yaabanaa habeenkii meesha ay aadaan. Mar walba uu weydiiyana waxay ugu jawaabi jireen inaysan meel dhan aadin. Aniga waa inaa gabdhahayga maalin walba u soo gadaa kabo cusub, maxaa yeelay habeen kasta kabahooda wuu ka go'ayaa. Aniga waa inaa ogaadaa meeshay aadayaan habeenkii gabdhahayga. Sultaankii habeenkii xigo wuxuu xiray ilbaabka, wuxuuna fadhiistay ilbaabka hortiisa si uu u ogaado meeshay aadayaan gabdhihiisa. Balse subaxii markuu waaga bariyay, wuxuu galay qolkii. Sultaankii markii uu gudaha soo galay wuxuu arkay kabihii oo ka go'an. Aad ayuuna ula yaabay, maxaa yeelay ilbaabka hortiisa ayuu fadhiyay, qof soo baxayna ma lahan. Haddii uu qof soo helo gabdhahayga habeenkii meesha ay aadaan, mid ka mid ah ayaa u guurinayaa. Wuxuuna noqonayaa sultaanka magaaladan. Sultaano fara badan ayaa isku imaaday qasrigii 12 boqorad. Sultaan kastana waxaa la siiyay 3 biri si uu u soo ogaado boqoradayaasha waxay sameeyaan habeenkii. Balse gabadha ugu weyneed 12 gabdhood ayaa waxay u keentay sultaanka biyo, asigana waa uu cabay. Kadibna sultaanka hurdo ayuu la dhacay. Subaxii ayuu soo kacay, mana arkin wixii xalay dhacay. Sultaankina maadaama ay qaladka kale labadaas sultaan aynu ogaan waayeen, waa uu xiray. Maalin maalmaha ka mid ah, nin askari ayaa waxa uu ku socday wadada qasriga. Waxa uuna arkay naag duq oo wadada dhex fadhisa. Waxayna ka tuugsatay cunto. Asina waxa uu siiyay rooti yar uu haystay. Waad mahadsan tahay, intee u socotaa askari? Aniga waqti dheer inta ka maqnaa. Dagaalo fara badan waa ka qayb qaatay. Hata aniga waxaa rabaa inaan ka qayb qaato tartankan. Dhibka sultaanka haystan inaan xaliyaa rabaa. Kadibna waxaa noqonaya aniga sultaan. Waad fiican tahay, midaasna tijaabo wanaagsan waayay. Laakiin adiga waxaa lagaa rabaa inaad iska ilaalisid biyaha ee ku siinaysa boqorada weyn ee ku suuxinayso. Adiga hadda waxaa qaadataa dharkaaneeti, markii aad hawshaada gudanaysidna xiro, markaas adiga laguma arkaayo. Adigana waad raaci kartaa meel alaala meeshii aadaan, weliba ayagoo ku arkayn. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Anigana waa dadaalaa. Askarigii waxa uu galay qasriga. Sultaankana waxa uu siiyay 3 maalmood inuu ku ogaado sirta 12 boqorad iyo habeenkii meesha ay aadaan.
sida caadada ahayd boqoradii weyneed waxay biyo u keentay askariga si ay u suuxiso. asigana wuxuu soo xasuustay maamadii weyneed waxay u sheegtay. markii ay boqorada weyneed bannaanka u baxdayna asiga wuxuu iska tufay biyaha, wuxuuna iska dhigay qof jiiftay si aanan loogu shakinin. asiga wuu iska jiiftay kabarama sidaa kuwii hore u jiifteen camal, sidaasoo kale leena asigana loo xirayaa. soo baxa gabdho, aan soo labisanna hadda, waqtigeena la gaaray. 12 boqorad waxay soo xirteen dhar qurux badan, waxaana xirteen kabayaashooda. walaalayaal, aniga waxaa ila roon caawa inaa iska joogna aanan bixin. waxaa u maleeyaa inay wax qaldan dhici rabaan. wax dhacaya ma lahan walaasheeda riistay, niyadaada khayr u sheeg. ninkan askarigana wuu jiifaa, mana ogaan karo. sida weligeennani waa bixina, waana soo laabanayna, cidda ogaanaysana ma lahan. niyadaada khayr u sheeg markaa. boqoradii weyneed ma aysan maqlin walaasheeda yariista waxay dhahaysay. gacmaha ayeen 2 mar isku dhufatay, kadibna dhulka ayaa hoos u quusay. kadibna waxaa u furmay wado sir ah, dhammaantoodana waxay raaceen wadadii sirtaheeda u furmatay. askarigana waxaasoo idil waa uu u jeeday, asigana wuxuu go'aansaday inuu dabaraaco, wuxuuna xirtay dharkii. qaybtani inta ayay ku eg tahay, qaybta labaad la socda. waad mahadsantihiin.